ayadana waa kaga soo baxaysaa qofkii qof dhibaateeya ama qofkii qof muslima dilaa. marka hadda bilaal baa nala jooga, waa ilaahay mahadii. intii ay la maleegayeen ilaahay waa uga dhib yareeyey, oo hadda waa ninkaas hadda meesha nala joogo hadlaya. qorshoodu ma ahayn inuu noolaado ninkan, laakiin ilaahay baa yidhi maya, waa nool yahay, waa caafimaad qabaa, keliya wuxuu u baahan yahay taageeradiina. seeta brother? الله ولك الحمد لله هذا وافي أنا هاي إلهي مهدي ما شاء الله. بلال ولو يمد بلال محل هذا هدت كان أديك سوى يقدمي. الحمد لله هرتا وكأجم هاد عنا هرتا ولك أيوب عشومات دانا دي وصل يسي أديك قل كاجا وأنا كافي لنا أديك أصحاب تاضبا إن عشومات دان إميت كسي قرق بدن بالله يسمعه. المهم هرتا أنا جنيك تقينين أنا هاي أو بلال برشاوي oo dhibaato ay kasoo gaartay magaaladiisii gudaheed asigoona cidna waxba ka galabsanin, waxba uusan ka samaysan. caawa madashaan waxaan rabaa in laygu ciiltiro, ilaahay kuma samadaraade dhibta la ii geystay laygaga meero, waxa aan tabanayo dadkayga Soomaaliyeed ay igu garab istaagaan. shalayna ayagaan u adeegaya, maantana ayaga dartooda la ii beegsaday, beritolna waxaan rabaa inaan ayaga aan u adeego. sidaas aawadeed ayaan caawa halkan u joogaa, walow dhaqaatiirtu aysan ii ogoleen hadalka faraha badan. waxaan go'aansaday caawa inaan idinla hadlo, idin ogeysiiyo siday wax ii gaareen, halka aan filanayo inaan ka rajeynayo inay noqoto caafimaadkayga. intaasaan usoo galay inaan lifekan aan soo fariisto. aada u mahadsan tahay bilaal. asxaabta siduu bilaal idiin sheegaba, xabaddu waxay kaga dhacday dhuunta. dhaqaatiirtuna waxay u sheegtay in bilaal uusan aad u hadlin, hadalkiisuna yaraado. marka bilaal aad uma warrami karo waxyaabaha muhiimka ah oo ay tahay inuu idinla wadaago. asaa idiin sheegi doonaa, inta kalena anigaa caawi doona, anigaa caafimaad qaba. marka saas u ogaada. weli bilaal isbitaalkiyaa ku jirtaa soomaa saaxib? xilliga aan kula hadlayo sariirta isbitaalkan saaranahay oo aan fadhiyaa. waan rajeynayaa insha Allah maalmo kadib inaan kasoo bixi doono hadduu alla idmo. dadaalku intaan keliya kuma ekee, waxaa jiraan dhalinyaro fara badan oo ayagana isku dayaya inay caawiyaan, oo ii sameeyeen linki la yiraahdo GoFundMe oo saaran profileka TikTok-gayga. qofkii raba inuu numberkayga u helo, linkigaas hadduu ku dhufto oo gudaha u galo oo GoFundMe-ga uu aqriyo, qaybaha hoose numberkayga koomadeyda ku qoran, halkaasna wuu igala soo xiriiri karaa, wuuna iga soo caawin karaa. anigu maanta inaan Soomaali usoo baahdo oo aan gacanta aan hoorsado, waxa ii geeyay waxay tahay, waxaan ogahay shalay ayagaan ahaa, maantana ayagaan ahay, beritolna ayaga ahaan doonaa. taasaa igu kaliftay inaan baahideyda aan usoo bandhigto. almuhim aniga ka bilaal ahaan dhibku wuxuu isoo gaaray 2 bishii September habeenimo fiidkii, anoo fadhiyo meel maqaaxi ah, anuu sii jeedaa qaybta gadaale la iga toogtay, xabaddu dhana iga soo gashay, dhanka kalena igaga baxday, iyadoo jeexday dhuunta. oo ilaahay kuma samadaraadee ayaan la ii diidanaa inaan wax cuno waxna cabo, ilaa muddo 5 maalmooda aan waxba aan cunaynin waxna aan cabaynin. ugu dambeyn hadda maanta waxaan awoodnaa inaan hadlo, inaan wax cabo, inaan wax cuno. ilaahay mahadii. dhaawaci inta badan waa kasoo bogsooday. maadaama aan soo bogsoodana waxaa loo baahday xaggii dhankii kale ee dhaqaalaha, iyo ilaahay kuma samadaraadee waad ogtiin anigu nin dhaqaaliyahana ma ahi, nin dhaqaale ka tabcada ma ahi, Soomaalida ma ahi nin ilaahay kuma samadaraadee taajira, family taajira kama soo jeedo. taasa igu kalifta marka maanta inaan idinka codsado in lay garab istaago. bilaal insha Allah waxaan rajeynayaa in ilaahay caafimaad buuxa marka koowaad ku siiyo.
midda xigtane habeenkii dhibaatada kugu dhacday dadku aad bay uga xumaadeen, aad bay uga murugoodeen. dadka dhammaan waa ay kuu duceeyeen, aad bay kuu jecel yihiin. waxaa taa nin dhalinyaro ah oo dalkiisa ku sugan, dalkiisa jecel, dadkiisa jecel, samafala ah, dadka maaragtay u gargaara, dadka caawiya. maanta adiga in Soomaali ay ku caawiso waa ay ka go'an tahay. waxaan ka warqaba habeenkii dhibka kugu dhacay siday uga dhiidhiyeen. marka bilaalow aan mid ku weydiiyo, rasaasta dadka kugu dhuftay soo laba xabo maa xabadaha kugu dhacay? midna way iga dhex baxday oo dhuunta dhinacay iga soo gashay, dhigta hoosteeda ka baxday. midna waxay iga sartay xagga dambe ee madaxa. okay, dadka xabadda kugu dhuftay ma aragta adiga ishaada ma saartay? may indhahayga ma saarin, anuu sii jeeda la itoogtay. okay, insha allah dadkaas dhibaatada kugu geystay ilaahay agtiisaad ku xisaabtamaysiin. haddii la aqoodana insha allah adduunyada looga jarayaa ciqaabta ay u qalmaan ay ku helayaan. nacam daalidno. asxaabtu waa joogtaa, live-ka share gareeya, shaashada taabtaabta. walaalkiin Bilaal waa kanaa, waa markii ugu horeysay oo uu hadlo ma uu live ka soo muuqdo. umaleynaya Bilaal haddaana qaldayn kadib dhibka markuu gaaray kadib soo ma sax waa markii ugu horeysay. waxaan rabaa inaan saaxiibada aan ogeysiiyo oo aan ugu soo celiyo, haddii aadan awoodin inaad maanta aad halkan aad iga caawidaan, waxaad awoodaan inaad linkiga profilkayga saaran aad gashiin si aad u heshaan akoomadeedii nambaradeeda meesha saaran. linkigana waa GoFundMe, asigana sida wax loogu bixiyo haddaad taqaanana waa ku bixin kartaa. Bilaal Bushaawi waa ka warqabtaan intuu isheeg arrimo badan buu soo qabtay. waxaan ka mid ahaa caawintii dadka Soomaaliyeed oo abaareysnaa uu caawin jiray oo meel kaste oo deegaan kasta u tagi jiray. marka waxaan naga codsanayaa dhalinyaro adduunka wax isku yahay, aakhiro wax isku maaha. Bilaal waa saaxiibkeen, waa walaalkeen, waa nin dhalinyaro aad u fiican, waa nin aad u fircoon, waa nin bulshada Soomaaliyeed oo dhan jecel yihiin, asna jecel. ani ahaantida yaxbul Bilaal nolosha horta marbaas aragnay. mar waxa weeye hadda aan Muqdisho imaanayay oo aan 2 saac kaliya joogay. dee anuu Bilaal markaas anoo ogaaba inuu nin fiican yahay, waxaan soo ogaaday inuu nin aad iyo aad dhalinyaro ah oo fircoon oo dadkiisa Soomaaliyeed jecel yahay uu yahay. marka waxaan naga codsanaynaa dhalinyaro caawa halkaas walaalkeen Bilaal Bushaawi waa ka warqabtaan xaaladiisa in caawa halkan u kacno. waa Landheere, waa ragii Rabiiqaan, waa nin aad iyo aad u fiican xaqiiqatan. Soomaaliduna mid baan ku jeclahay, waxaan ku jeclahay markii arrin timaado waa isgarabsadaan. waxaana jeclaan lahaa saa isu garabsanaysaa inaad markasta isu garabsataan dhalinyaro. tan yeesasaan ku ekaan Bilaalna caawa aan tusno inuu walaalkeen yahay, inuu nin dhalinyaro Soomaaliyeed yahay, inuu markuu hilin naga soo baxday oo aan u gudi karno. ali maqlaya Soomaaliya aad lagu maqlay. adduunka waxaa la helo caafimaad baa wanaagsan. qofku hadduu caafimaad haysto wax kasoo sameynaya uu soconaya, wax kasoo qabsan kara. laakiin caafimaadku wax la helo maaha dhalinyaro. Bilaal walaalkeen waa dhaawac, waa ka warqabtaan dhalinyaro. marka Bilaal Bushaawi aniga wallaahi habeenkii aan arrinkaas aan maqlay saan u naxay wallaahi. mararka qaarkood wallaahi markaa soo xasuusto aad baa u yaabaa. waayo Bilaal nin dhalinyaro aad u fircoon weeye oo maanta haddaad hiil hawl kaga baahatay wax kaga baahatay aad ka heli kadib. maantana annaga naga helo weeye Bilaal Bushaawi, gar iyo gardaraba. Bilaal Bushaawi waa inaan garabkiisa noqonnaa, waa inaan maanta tusnaa, waa inaan u muujinaa. Bilaal waa ka warqabteen inta qof oo abaarihii dalka soo maray soo uga qayb qaatay. meel kastuu tegaya oo gobol kasta Soomaaliya oo meel kastuu tegaya. maanta marka mid baan ku darsanayaa, waxaa weeye war adduunka wax isku yaha, aakhiro wallahi wax isku maaha. wallahi qofkas camka soo tegaya. marka Soomaaliduna waxaan kaga yaabaa marka qaarkood markii wixii gadaal ka dhacaan bay isheeg wax sameeyaan shallayto. marka lama rabo shallayto, lama rabo. maanta wax kaste qof kasta wuu fahmayaa. marka walaalkeen Bilaal Bushaawi halkaas noo saaran yahay, dee aan garab istaagno gar iyo gardaraba.
walaalkay bilaal bushaawina si qaasa u salaamayaa. waxaa helay cadow aan nixin, cadow aan nolosha waxba ka aqoonin, cadow aan dhalinyaranimo iyo soomaalinimo aan waxba ka aqoonin, oo maaragtay wax oo hadda lagu soo weeraray waa ninka dhalinyarada ee iska baashaalaya ciyaalka xaafadda iska ah. siyaasad buuna shaqo ku lahayn, howlo kaloona shaqo ku lahayn, bulshadiisaasoo caawiya oo u gurmadaa. marka qofkaasi cadow lama dhihi kare, waa qof maaragta xag jir ah. marka horta taas waa ka tacsideyna, waxaa la walaalkayow ilaahaygii intaa kugu simay waa mahad iskale. qofkaa hadda maanta waxba kuuma yaraysan, laakiin ilaahay baa xaggiisaa laga dhintaa. intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay, waxaan idinka codsanaynaa inaa horta live ka share garaysaan. bulshada soomaaliyeed buu bilaal u shaqayn jiray, u adeegi jiray. waana maantana asagiyaa maanta nooga baahan inaan garab istaagno. walaalkeen waaye, nin dhalinyaraa waaye, ciduu dembi ka galay iyo ciduu magaranaysaa wax ku sameeyey ma jiraan. sidii shalay oo hooyooyinka soomaaliyeed ee meel kasta degan ee abaaruhu saameeyeen oo biyaha ugu dhaaminayay oo raashinka ugu qaybinayay, maanta waxaa idinka codsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay garab istaagto bilaal bulshaawi. bilaal bulshaawi nin qabiil ma aha, nin qabyaalad iyo qabiil hurya ma aha, waa nin dhalinyaro ah. maanta meel geyga soomaaliyeed ka xiranna ma jirto. marka dhammaan waxaa idinka codsanaynaa walaalaha soomaaliyeedow inaad bilaal aad garab siisaan. bilaal waa inaan garab istaagnaa oo maaragta qof walbo wuxuu awoodo. walaalkeen maanta waa naga xanuunsan yahay. duco haddaa awoodid xataa ayada laftirkeeda wax dheefka keliya waxba ma aha. ducadu xataa waa sadaqo, waana waxa ugu fiican. marka walaalayaalow, ilaahay inuu noo caafiyo walaalkeena haloo soo duceeyo, sidoo kalena hala soo garab istaago. maanta support uu nooga baahan yahay bilaal. waa ninkii shalay aad garab taagneedeen, saaxiibka la aheedeen, maaragtay meel walbo aad maaragtay oo dadka soomaaliyeed aad ku taakulaynayseen ood ku saboor garaynayseen. baalasha oo ku duulayay shalay idinka u ahaayeen. maantana waxaa la rabaa idinka inaad garab istaagtaan oo si maaragtay walaalnimo ah oo kalgacal leh inaad u garab istaagtaan. walaalkay ayuub asagana waa u mahad celinayaa oo barnaamijkan soo qaabiyey. inta dhammaantiin beerka ka jecel inay salaanto ama mar uun codkiisa maqashana waa mahadsantiin idinkana. waxa weye dadku waxa weye lama wada qancin karo, laakiin waxa waaye waxaad ilaa idinkana aada u mudan tihiin. laakiin waqtiga oo yar awgeed iyo dadkii oo maaragtay inta maaragtay importantiga ayagana la rabo in maaragtay waqti la siiyo. marka waxaa idin leeyahay walaalayaalow, bilaal gacan aan siino, aan support garayno. ani xataa diyaaraan ahay. marka waxay awoodeedu tahay walaalkay inaan maaragtay aan dhammaanteen aan garab istaagno oo aan support garayno. marka ayuu waa ka baxayaa, aada u mahadsan tahay. dadka kale haddaa jaanis siinayin ii sheeg. haddaa oo maaragtay